siyaasiyiinta Afghanistan oo dhaqdhaqaaqayaasha bulshada rayidka ah iyo saxafiyiinta ayaa lagu wadaa inay la kulmaan maanta oo axada wakiilada ka socda Taliban ee ku sugan dalka Qatar si ay u wada yeeshaan shirweynaha Afghanistan ee lagu doonayo nabad waarta oo ka dhalata dalka Afghanistan. Dowladaha Qatar iyo Jarmalka ayaa si wada jira u maalgelinaya shir madaxeedkan oo socon doona muddo 2 maalmood kaas oo ka qabsoomaya caasimadda Qatar ee Doha, waxaana la rajeynayaa inay ka soo qayb galaan wafdi ka kooban 50 qof oo u dhashay dalka Afghanistan. Kulanka waxaa looga gol leeyahay in uu sii wado wadaxaajoodka dib u heshiisiinta gudaha Afghanistan. Ergeygii hore ee Afghanistan oo qaabilsanaa dalka Pakistan, Omar Sakhilwal, oo ka qayb galaya shirka ayaa sidaas u sheegay TV-ga Al Jazeera. Waxa uu sidoo kale sheegay in shirku uu dhammaystirayo wada hadaladii Mareykanka iyo Taliban ee lagu waday inay ka qabsoomaan Doha balse dib loo dhigay. Taliban oo si isdaba jooga u diiday horaan in ay la xaajoodo xukuumadda galbeedka ee madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa haatan ogolaatay inay ku biiraan shirweynaha. Taliban mar rabto inay la fariisato xukuumadda Afghanistan sababtoo ah waxay aaminsan tahay in wada hadalka nabadda ee dawladdu ay saameyn doonto niyadda dagaalyahanadeeda ku sugan jiidda hore ee dagaalka. Hashim oo falanqeeya siyaasadda ayaa sidaas TV-ga Al Jazeera u sheegay. Tan iyo markii ay Talibanku si awood ah ay ku maamulayeen dhul ballaaran, kooxdu waxay u malaynaysaa in ay majaraha u hayso dagaalka iyo nabadda dalkaasi. Sarkaal ka socda dowladda Afghanistan oo ah dadka ka qayb galaya shirkan ayaa sheegay in arrimaha looga hadlayo shirka ay ka mid yihiin xuquuqda haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay. Afghanistan waxay u taagan tahay fursad muhiim ah oo loogu talagalay horumarinta nabadda, ayuu yiri wakiilka gaarka ah ee Jarmalka u qaabilsan Afghanistan iyo Pakistan, Markus Butzel, hadal uu soo saaray kadib markii lagu dhawaaqay shirkan toddobaadkii hore. Bishii Abriil, kulan la mid ah shirweynahan oo u dhaxeeya wakiilada Afghanistan iyo Taliban ayaa la qorsheeyay inuu ka qabsoomo magaalada Doha, kaas oo baaqday kadib markii ay isku khilaafeen labada dhinac tirada wakiilada ka socda Afghanistan ee ka qayb galaya shirka. Dhanka kale, siyaasiyiin sarsare oo ka mid ah siyaasiyiinta Afghanistan oo ku jira madaxweynihii hore ee dalkaas Hamid Karzai ayaa caasimadda Ruushka kula kulmay wafdi ka socda Taliban, iyagoo ka wada hadlay arrimo la xiriira ansixinta dastuurka cusub iyo dawlad ku meel gaara. Labada kooxood oo dagaal hore uu ka dhaxeeyay ayaa la arkayay iyaga oo wada dukanaya waxna wada cunaya intii uu socday wada hadaladii Moscow. Inkastoo ay socdaan dadaalada lagu joojinayo dagaalka 18 sano jirsaday ee ka aloosan Afghanistan, haddana dhowr weerar oo halis ah ayaa ka dhacay dhawaan dalka oo dhan. Jimcihii dowladda Islaamiga ah ee Ciraaq ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerar lagu qaaday masjid Shiicadu leedahay oo ku yaala gobolka Qansi, kaas oo lagu dilay 2 qof. Sidoo kale, jimcihii ugu yaraan 14 qof ayaa la dilay, kumanaan kalena waa la dhaawacay markii suuq ku yaala gobolka Fayrab ay dab qabadsiiyeen.